السلام عليكم عيد مبارك كلكين waxaan maanta booqasho ugu tagay gudoomiyihii hore baarlamaanka Puntland mudane Cabdixakiim Nabadaareed waxaad ogtihiin maalmahan inay socdeen mashaakilaad ka socda gobolka Puntland siiba madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha arrimahaas ayaan rabnaa inaan waraysi kala yeesho gudoomiyaha iyo fikirkiisu waxa uu yahay بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين marka koowaad waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo ama ku bogaadiyo maalinta ciidul fitriga ama ciida fitriga insha Allah ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bi khayr taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ciideeda insha Allah ilaah waxaan ka rajeynayaa inuu caafimaad iyo barwaaqo iyo guul iyo dalka inoo horumara oo wax walba inoo hagaagaan uu inoo ku gaarsiiyo biidnillahi ta'ala isaga awood loo wax walba loo weydiistaayo marka munaasabada ciida ayuun baa muhiimadeedu ahayd inaan la wadaago farxadda ciida oo dadku wada faraxsan yahay marka insha Allah waxaan leeyahay ilaah mar labaad waxaan leeyahay ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ilaah naga aqbal acmaashii aan bisha Ramadaan soo qabanay way isugu jiray soonka salaada quraan akhriska ducada iyo waxyaabo kala badan oo khayr ah sadaqada ilaahu naga aqbal oo muslimiinta oo dhan ka aqbal oo qalbiga muslimiinta isu soo jeedi gaar ahaan ilaahu kan ummadda Soomaaliyeed isu soo jeedi oo ummadanteeda iyo waayaheeda iyo waqtiga ka lumay iyo muhiimadda ay leedahay dowladnimo garata ilaahu rabbow ka dhig baan leeyahay waa maalin ciid farxadeed rabbow insha Allah adiga awood leh wax walba adiga awooda kolba xigmadaadu waqtigan baad u astayso ay leedahay arrintani ay dhamaato laakiin adaa yiri barya shaqeeyana oo socda niyadana wanaajista marka mar labaad waxaan leeyahay ilaahay dalka iyo dadkaba hanoo hagaajiyo كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد ونكسن مدن قدومي مناسبة عيد أوجه وحيابها عن رأينا وحكاوي ويدي وحكمنا وحال الشيء إن دقو لجارسية قبل هذا بلدان أو الجارسية دولة الفدرال إيوه سيدو أركت خلاف كان ما أنت بلدان كتاجن محاسك حاجة مغلى سيس حل وجو جاري كلام بسم الله su-aalaha aada i weydiisay ama su-aasha u horeysa oo ah deeqda magaalooyinka ka midka ah Puntland la gaarsiiyey oo ay gaarsiisay dowladda federaalka runtii horta dowladda federaalka ahi waa dowladdii dalka ee sharciga ahayd dalkana loo doortay adduunkuna aqoonsan yahay mas-uuliyadina ay ka saaran tahay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed inay deeq gaarsiiso dadkeeda tabaaraysan ama xilligan lagu jiro waqtigan oo COVID-19 uu ku qasayo adduunka inay deeq dawo gaarsiiso waxaan leeyahay waa arrin aad u wanaagsan waana shaqadoodii iyo muhiimadii loo doortay oo ay lahaayeen iyo dadkii mas'uuliyaddu dalka ka saaraa weey laakiin waxa la yaabo dadka u baahan daawo xataa wuxuu kala duwan yahay waa daawo dadka Soomaaliyeed ee daawada u baahan ee daawadii loo geeyay oo ka hadlaya kii lahaa mas-uul baan u ahay oo dowlad gaaramiye dowlad Soomaaliyeed baan oo federaal oo ka hadlayo aad wax loola yaabo weey waxaan maqlayo dhageysanaya madaxweynaha dowladda Puntland oo BBC la wareysanayso oo leh dowladdu kala dambeynteedii bay luminaysaa dhul bay gobollo ka mid ah wax geysay afkana wuxuu ku dhuftay 3 magaalo oo kala Buuhoodle iyo Baran iyo Galdago horta waxaan moodaa halkaa inuu aad uga bariiqday ceebna inay ku tahay waxayna dhadhamaysaa dhadhan kale bay dhadhamaysaa arrintaasi waayo magaalooyin kale oo Puntland oo deeq la gaarsiisay dowladdu baa jirta mid maxaa u dambeeyay wuxuu kaala sii sido haddii qarnuu joogay $1 milyan bay dowladdu ugu deeqday muxuu uga hadli waayay
muxuu taasi muddaha bayahay so uma muuqato markaa inuu dadka qaybna wax u diidan yahay qaybna wax u ogol yahay so dhadhami mayso marka la sii dhadhamiyo saasay dhadhamaysaa waayo deeqaha loogu deeqayo gaalkacaya loogu deeqay oo ay hadda ka hor dowladda ugu deeqay oo ama garoonku beed ha noqoto ama waxyaaba kale ha noqoto boosaasay ugu deeqday maxay ahayd in garoway ugu deeqday qardhay hadda ugu deeqday $1 million daawada yar ee la geeyey magaalooyinka oo weliba xilli adag oo xasaasiya kusoo deegmay oo daawo ah waa daawo waa wixii ugu muhiimsanaa qof ibni aadana baahidiisa inuu ka hadlo arrintaasi dhadhan kalay samaynaysaa wuxuuna caddaynayaa waxyaabihii awal huursanaa oo aanu sheegaynay ayuu caddeeyey dowladdana waxba may dhimin dowladdu wanaag bay samaysay waan ku bogaadinayaa waan uga mahad celinayaa waan ku dhiirigelinayaa dalkooda iyo dadkooda inay ka warhayaan mas-uuliyad baana ka saaran aakhiriya adduunba qoladana waxaan leeyahay kooxda joogta puntland oo saciid cabdilaahi dine hogaamiyo wixii wax cuno oo dhan baad necab tihiin ma aha inaad dowladdu inay wax keento necab tihiin laakiin wixii wax cuna oo aan idinka ahayn oo dhan baad necab tihiin sidaas ayaan u fahmaya arrintaa ceebna weeye waxaan kaloo u sheegaya saciidow dalka iyo magaalooyinka aad magacawday waa dadkii iyo dalkii aad kala kaxaysay ee puntland la isku horan jiray laakiin maanta aan gacantaada ku jirin ma fahamtay sababna adaa u noqday marka adigu marna inaad adduunka aad kala kaxaysid oo aad maxay ahaydeenay aad adigu ummadda ururkeeda iyo wax wadalahaanshaheeda iyo wax wadaaggeeda aada baabiisid iyo inaad hadashid marka dadka ilaahay uu dad u sakhiro ama dowladdooda u sakhiro wax isgelaya maaha saciidow wax isgelaya maaha puntlandna waxaad ka reebtay intawan hadda aada joogtide oo laamigu maro ah intaasaanba hadda gacan kuugu jirin aniga hadda say muuqata laakiin magaalooyinkan xoodaha aad ka hadlaysid awalna gacan kuuguma jirin haddana kuuguma jiraan wax kasta oo ciddii wax siinaysa cidday doontaa noqoteena waan soo dhawaynaynaa diyaarna waan u nahay dalkaa degan uu magacaayo madaxweynuhu oo dhibsanaya in wax la geeyana waxaan leeyahay wax badan baanu idinla hadalnay lawaa puntland la wada leeyahay waa la waayay waanu jeclayn oo waynu rabnay oo waynu ognahay oo is ognaho wax badan baynu ku dulqaadanay oo hore u muuqan weyde dadkii mas-uuliyiinta sheeganayay ama isku wada inay dambaabaanba iyagu cid kalena aanay mas-uul noqon karin ma muuqan weyde oo dhadhami weyde waxaan leeyahay adduunku maaha qabyaalad adduunku waa dowladnimo iyo isfahan weeye waxaa lagu wada joogi karaa tashada dad baa laydinka dhigay damiirkiinu ha shaqeeyo dareenkiinu ha shaqeeyo waad aragtaa noloshiinii maanta dawadiinii baa laga hadlayaa laydin keenay iska daa wax kaloo laydin quura wax kaloo aad sugtaan iska daaya waxaan leeyahay marka tashada oo dantu meesha idinku jirto waad garan kartaa meelaynu hadda isu sheegayno maaha dantiina garta dadyo baraarugana intaasaan kaga baxayaa su-aashaa bismillah su-aashaada weydiisoo kale mustafa oo ah khilaafka u dhexeeya labada mas-uul ee haddeer puntland jooga waa khilaaf soo noqnoqday wuuna horeeyo wuu la bilowday puntland horta sideedaba khilaafka wuu la bilowday haddaad aragtid meel aan khilaaf ka bixina way caddahay hoggaankeedaa xun capacityga mas-uuliyadeedna aan lahayn taas ba intaasaa ku filanba waayo haddaad aragtid meel had iyo jeer khilaaf iska qabsi maxaa haydeen wax soo noqnoqda waxyaabo hoose oo kor u soo baxaya aada aragtid meel caadaysataan bay kasoo baxbaxaan waxaa hoggaankeeda xun sababta hoggaanka wey horena waan u sheegay anigu waan sheego waan caddeeyo waxaan ku yidhi saciid ma habboona puntland hoggaaminteeda kuma habboona wayna caddaatay oo tana daliilo ah annaga khilaafkaygii hore aad ogeyd wixii dhacay baad ogeyd sharcigii in lagu tuntay baad ogeyd waxaanu ka wada hadlaynay wixii dantii naga dhexaysay dalkii dadkaanu haynay iyo mas-uuliyaddii bay ahayd tan khilaafkan hadda dhaco labadooda ka dhexeeyaana kayga aniga wuu ka horreeyaba anaa dhex galay ee raggaan ku jiro waxa weeye weliba ragga anaa hogaaminayay
khilaafkaana waxaan isku daynay inaanu caburino inaanu soo bixin in puntland gacmo geer jira hoos baa loo dhaqaaye waxeeda ay hoos u dhamaysato ilaahayna wuu nagu guuleeyey taa waxaanu islahayn wax dambe soo bixi maayaan oo siciid wuu ka xishoonaya amba uu ka taxadiraya waayo mas-uulkii dalka isaga ahaa khilaafkana markaan taabto oo aan dhab u taabto waxaa gardaran siciid madaxweynaha gardaran wuxuu gardaran yahay qodob dastuur uu siinayo ama dastuurka wuxuu siinayo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka horta awalba meesha wax kuma haysan ku-xigeen awalba meesha wax kuma haysan ama madaxweynaha ahaada ama wasiiraha ahaade laakiin wixii yaraa ee dastuurku siiyeyna waxaad moodaa siciid inuu beru dhigtay oo aanu ogolayn waxa ugu muhiimsan wuxuu ahaa tashi waxaa meesha ugu qoran tashigina ugu didi tashigu marka waa dastuuri khasab ah inuu la tashado laakiin khasab maaha wuxuu kula taliyo inuu wada qaato sharcigu wuu qoran yahay maaha wax jeebka siciid ku sito maaha wax axmed kalaash jeebka ku sito waa wax qoran waa kontraagii puntland waa dastuurka puntland way qoranta si fiicanna waxa u qeexaya qodobada 8aad iyo 11aad waxa weeye marka qodobada waxa ugu qorani oo ugu muhiimsani madaxweyne ku-xigeenka waa la tashi la tashiga marka waa khasab inuu la tashado khasab wey dastuuri ah laakiin khasab maaha wuxuu kula taliyo inuu wada qaato khasab maaha wuxuu kula taliyo inuu wada qaato laakiin waa dastuuri inuu la tashado tashigana meesha uu ka saaray waana arkaysay hadda xataa xishoodkii wuu lumay iyagoo ishayo oo aan wada hadlin oo isu tegin warqadiisii uu ku magacaabay wasiirada wuxuu kusoo qoray markaan kala tashaday madaxweyne ku-xigeenka waxyaabahaasoo dhami waxay kutusinayaan waxyaabahaasoo dhami waxay kutusinayaan maroorsiga iyo xoogga la isticmaalayo iyo inaan waxba laga ogolayn maxay ahaydeenay awoodda taalla meesha oo la wadaago ama puntland la wada leeyahay in meesha laga saarayo wixiina uu rabo nin inuu isku ururiyo hal nin inuu isku ururiyo oo aanu cid kale wax uga ogolaa taasna dee dad laguma noqon karo bini aadamku waxa weeye cadaalad buu u baahan yahay ma fahamtay axmed marka wax ku gardaraanaya haddii uu yidhaahdo taladan dhiibay khasab weeye in la qaataa wuu ku gardaraanaya dastuurku taamasi laakiin waa in wax laga qaataa hadday wanaagsan waa laga qaataa madaxweynuhuna kuma khasbana inuu qaato laakiin wuxuu ku khasban yahay inuu tashado wuxuu kale oo iyadana jirta waxyaaba badan baa puntland ka dhacay runtii wax dowladnimada ku fiican ma wax qof mas-uuliyad siyaasadeed wuxuun ka garanayaa samayn karana ma waxaanu ognahay in madaxweynuhu dalka hadduu ka baxo automatically dalka hadduu ka baxo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyneha saasaa dastuurka puntland ku leeyahay that means awooddii dalka iyo awooddii madaxweyne isagaa isticmaalaya ilaa uu kasoo noqonayo talada markaa madaxweynaha yeelanaya hadduu maqan yahay maaha inuu amar soo bixin karo hadduu dalka ka maqan yahay taladii madaxweyne ku-xigeenku lahaa isagaa yeelanaya taluu soo bixin karaa laakiin go-aanka wax qaadanaya oo leh madaxweyne ku-xigeenka dalkana madaxweyne isagaa ka ah kusime markuu yahay intuu soo noqonayo waxa dhacday madaxweynuhu oo wax aada looga yaqasooda xataa lacaga uu qoray oo yar waxaan xusustaa lacag yaroo inaan sheego waan sheegaya wax binaa runtii wax la sheego kuma ficin laakiin waan taabanaya waxaan u caddaynayaan wax kale maaha inaan meeshaas aanay jirin nin wada lahaansho iyo awood la wadaago iyo mas-uuliyad la wada leeyahay inaanay jirin baan u sheegaya waxaa dhacday madaxweynuhu isagoo maqan oo dalka madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ka yahay inuu nin xildhibaanoo xaq u leh uu $3,000 uga qoray bankiga uga qoray 3,000 markii la siiyana madaxweynuhu inuu yimi oo yidhi waa ina soo celiyaa lacagtii ilaahay baan idinku dhaariyey ilahay baan idinku dhaariyey ma mas-uuliyad baa waxaas ma sharaf ba ma nin mas-uuloo dal dhan xukumaa wuxuu ku hadluba aada wax looga yaqsoodo weeye anu marka waxaan leeyahay siciid cabdillaahi nin miyiga xariifku ahaa oo xariifka caddeen miyiga ahaa oo oday ahaabaa wuxuu soo galay magaalo dabeetana magaaladii uu fahmi waaye oo odaygii magaaladii si ugu yar ceeboobay dee ilaa ninku meeshiisii maaha moogta marka qolaa wasta waxay idhahdeen malafsade magaalada allahayo waxay idhahdeen malafsade maqnaantii iyo miyigiibuu ku roonaaye allahayo magaalada maamuusma kaga dhacay siciid cabdillaahi waxaan leeyahay siciid cabdillaahi deni macalinkii iyo maamulihii iskuolku ku roonaaye allahayo madaxweynenimada maamuusma kaga dhacay baan leeyahay
waayo waxyaabahaasi war ilaah baan ku dhaariyay ma wax nin mas-uula ka suroobi karaba waxaan aaminsanahay marka siciid siyaasiga usahaysa inaan siyaasi ahay dowladnimadana inaanu aqoonin waana takalifaysa hadduu dowladnimada wax ka yaqaano waad ogeydaan raggii waaweynaa ee puntland soo maray ee siyaasiyiinta ahaa ee dowladaha la dhashay ee ku soo koray ee xilalka ka soo qabtay marka la yidhahdo dastuur cabdillahi yusuf ka soo bilow cadde ku xiji cabdiraxmaan farolo ku xiji marka la yidhahdo dastuur cabdiweli xataa ku xiji kama dhicin dastuur marka la yidhahdo special law nimanka waaweyn dastuurka marka la yidhahdo waa istaagi jireen waayo dowladnimaday garanayeen mas-uuliyadday garanayeen madaxnimaday fahmayeen laakiin dee waxaa la yidhi sideedana mid ogaada qofka ibnu aadanka ahay dee waxaan aqoon jaahil buu ka yahay haddaan marka qofkii wixiina aqoon talana aanu ogolayn dee ceebun buu uga dhacayaa sidaas ciid cabdillaahi deni marka khilaafka puntlandna anigu saasaan u arkaa waxaana leeyahay anigu waa ku talinayaa puntland haloo turo haloo turo puntland shacabka iyo dadkana haloo turo sharcigana hala ilaaliyo haddii aad si kale u heshin wadaan anu waa qabaa dhexgalkan iyo oday iyo habar iyo isim iyo riwaayadan meesha inaanay ku jirin arrintu geed maaha waa arrin sharci waan qabaa anigu dastuurka in lagu kala baxo laakiin waxaa isweydiin leh dastuurka yaa ku kala saaraya dadka maxkamaddii dastuuriga ahayd waa la diiday in la sameeyo waxaa loo diidayna waxyaabahaas marorsiga bay ahaayeen maxkamadda sarena arrintaa anu ma aaminsaneyd inay geli karto xataa hadday gasho nin baa magacaabo u taliyaba ma aha xataa maxkamad xor maaha marka anigu waxaan ku talinayaa dastuurka lagu kala baxo laakiin ha noqdeen dadka dastuurka arrintana hala dejiyo dastuurkana ha noqdeen dadka wax ku kala saaraya dad lawyerisa ama dadkii waxaan aqoonta ulahaa ah ha noqdeen baan leeyahay sharcina ha lagu kala baxo axmed kanaashna waxaan leeyahay oday baa tahay oo siciid oad ka weyn tahay mar walba odaynimada ha ka tegin xaqaagana dee ku dood xaq baad u leedahay wixii siciid xaq u leeyahayna ha ku xadgudbin intaas ayaan kaga baxayaa oo taladayda su-aashaan insaan kaga gudbin waxaan kaloo ku weydiin lahaa wada shaqayntiini intii aad wada joogteen maxaa caqabada ood kala kulantay bismillah su-aasha kale oo safo ahayd aada weydiiso ahayd khilaafka aniga deni naga dhexeeyey horena waa lai weydiiyey maro horena waan ka hadlay laba arrin baan kusoo ururiyo keliya hadda waxba ku tiigaani maayo wuxuu ahaa arrin sharci sharciyadda aan raacno ayaa deni iyo kooxdiisu aniga ay igula dirireen dastuurkaa hadda la isku haysto kaa aan raacno because kitaab baan gacanta ku saaray waan noo ku dhaariyay mas-uuliyaddana ummad baa noo dhiibatay ma ahayn dee mid ay deniya noo dhiibteen ilaahay inaan kaga baqnana waxa weeye waajib bay nuga ahayd akhriya adduunba inaan mas-uuliyaddeeda ilaalino bay ahayd marka arrintaas ay arrin sharci bay ahayd dastuurkaan raacna ko qodobka labaadna wuxuu ahaa horaan sheegay dowladda federaalka dowladdaasi waa dowladdeennii magacaynu sidanana waa taqaanaa oo hooyada puntland baa layna yidhi waa abaalgud wanaagsan oo layna siiyey waxyaabihii aynu qabanay haynaga xumaynin haynaga xumaynin hooyo ilmaheeda kama qeyraarsiisee haynaga xumaynin hana inagu sawirin inaynu qarnimada soomaaliyeed inagu aynu cagaar haysano intaas ayay ahayd annaga khilaafkeegu marka la ururiyo qolada kalena waxa qof saddexaad baa weliya maslaxadaha qolada kale ah oo qolada kooxdiisa ah oo masaalix badan ku haysta puntland oo u arkayey waxyaabihii anigu aan markii soo bandhigay wax kamid ahaa dhaqaalaha dalka in la ilaaliyo oo guddiyaan qabtay guddi baan qabto markii diyaarsanayd oo magacawneyd oo aan u saaray ujeedkaygu ahaa dhaqaalaha dalka in loo ilaaliyo guddidaasoo aan u xil saaray 3 xeer 2 xeeroo hore u jiray oo xeer yahay xeerka hanti dhowrka oo 2000 ay ugu dambeysay wax abdeedoo lagu sameeyo in la abdeed galayo lana dhigo xeer rajaan qaadi kara xilligan si ay hanti dhowrku shaqadooda u gudan karaan hantida ummadana loo ilaalin karo qodobka xeerka labaadna wuxuu ahaa xeerka bangiga oo isaguna ah hay-ad madax banaan laakiin hadda hoos joogta maaliyadda labadaas baa hadda sheegaya madaxtooyada iyadana xeerkeeda inaan isna 2000 buu ahaa xilliga cabdillahi yuusuf iyadana in dib loo abdeed gareeyo oo lala dhigo wax xilligan shaqayn kara laguna sarayo waxaa iminka jira
arrinta saddexaad waxay ahayd arrinaan qeybteed 50% qabanay oo ahayd inaan madax baneeyo xisaabiyaha guud ee dowladda si loo ilaaliyo hantida ummadda waa saddexdii meelood oo laga ilaalin karayay hantida arrintaa markii la ogaaday raggaas ugu saaxiiboonan bay ahaayeen dagaalka uga adag baa laygu soo qaaday waana waxyaabaha soo dedejiyey in aniga dagaalka ugu xooga badan laygu qaado oo layla diriro ka qayb bay ahayd guddidaasi way magacaabnayd xataa warqaddaan ku magacaabay way qorayd waa loo sheegay shaqay bilaabi lahaayeen xeerka marka xisaabiyaha guud isaga waa la samayn lahaa because hore uma jirin waa madax banaynay hadda way wuxuu hoos joogaa xasan shire wasiirka maaliyadd uu hoos joogaa ma aaminsana isagu baarlamaanka ku madax baneeyey inaan sharciga jirin baan tusayaa kaliya xeerkii baan u samayn lahaa inuu ku shaqayn lahaa saddexdaa marka la helo dhaqaalaha dalku tight buu noqon lahaa dhaqaala ilaa 5 buuna noqon lahaa waayo bangigii hadda madaxweynaha keliya baa la xisaabtama cid kaloo ka waraysaa ma jirto wixii kusoo dhacana jeebka madaxweynaha ku dhacaa waxay noqon lahay dhaqaalaha dalka halkaa waa la ogaan lahaa waa la ilaalin lahaa hanti dhowrkana wuxuu noqon lahaa hay-ad u hogaansanta sharciga oo keliya xasaanad baa na siinay aan inadani eri karin laakiin xasaanada baarlamaanka ku qaadi karo keliya xisaabiyaha guudna waxaa arrintaa anigu uga shaqeynaya u sameynayaan waxay ahayd in awooddu aanay noqonin awood hal nin gacantiisa ku jirta ee awood dawliya ay noqoto systemkuna system dawliya uu noqdo awooduhuna ay qaybsan yihiin si wax loo ilaalin karo dadka wixiisa shacbiyadda loo ilaalin karo marka taasi waxay keentay xisaabiyaha guudna xaalka inaan u sameyno saddexdaas markay madax banaanaadaan sharciga keliya u hoggaansanaan xasaanadana baarlamaanku ka qaadi karo laakiin aan madaxweyne digreeto ku eryi karin kuna soo saari karin ayuu isla markiiba wuxuu bilaabay inuu xisaabiyihii guud eriyo oo meesha ka qaado oo mid ay iyagu wataan oo ay keenaan anigana ay dagaal ugu qaadaan waxyaabihii sababeed waxaa kaloo kamid ahaa maslaxadii kooxdaan sheegaya kooxda waxyaabaheedii intii horena dinibe waxaa kaloo kamid ahaa waxyaaba baarlamaanka la marinayo aanu qasab kaga dhignay in baarlamaanka la keeno oo ay kamid ahayd arrinta garoomada oo wasaaradda duulista hawada khuseysay oo ahayd shirkad ka shaqo gasha garoomada puntland oo ay leeyihiin kooxdaasi oo dadka waxyaaba aan sharci ahayn lagaga qaaday dhaqaala aan sharci ahayn meel la ku qorayn baarlamaan jaangooyey iyo cid ogolaatana aanay jirin arrintaana waxaan ku samaynay dibasixid runtiina dhowr jeer bay aanu weliba dib u celcelin oo dib loo saxayo aada looga shaqeeyey waxyaabahaasoo dhan way dhibsadeen saaxiibaday dagaal aada u badanna uu markuu galay weeye waa masaalixdoodii marka khilaafka iyagu salkiisu labada qaybood buu ahaa qeybta danina waan sheega wuxuu ahaa dastuurka iyo dowladda federaalka waan hore u sheegay qoladan saaxiibadayna waxay ahaayeen maaliyadda oo aan doonay dhaqaalaha inaanu adkeyno madaxweynuhu wuu la qabay intaa waxa dheeray xisaab xidh baa jiray aanu celinay kamay dhicin puntland intii ay shaqaynaysay 21 sano xisaab xidh weli la celiyey oo la fahmay baarlamaanku yiri sax maaha intaan joogay bay dhacday oo waxyaabaha soo dedejiyey madaxweynaha iyo wasiirka maaliyaddana kulli ay aad uga qayliyaan oo aanay qarsan oo yidhahdeen ma anaga ku shaqayn karna miisaaniyad oo maxaa hadda waan sixinaysaa u keenaysaa haddaan ku shaqayn karna aniga marka khilaafkaygu noocyadaas u ahaa oo noocna kooxdaasa riixayso kuwaan hadda ka hadlayba ahay noocna nooca ina daliya anaga naga dhexeeyay buu ahaa marka khilaafkaygu saasuu ku salaysnaa waxaana kuu sheegaya kaa axmed buu la mid ahaa waxaan xaq u lahaan baa la diidanaa mudana guddoomiye madaxweynaha puntland mr deni waxa uu eedeeyay dowladda federaalka sidee kula muuqataa eedeynta uu madaxweynuhu eedeeyey dowladda federaalka waan dhegeysanayay runtii aada baan ula yaabay waayo madaxweynuhu waxaad moodeysay dowladda federaalka inuu iyada laftigeeda hadalku siduu u dhacayay uu ku eedeynayey oo uuba aabe uga dhigay anuu saan u fahmay haddaan fahamkii khaldanayn qaraxyadii puntland ka dhacayay dilkii ninka la yidhaahdo yariisow oo maayarkoodii iyo guddoomiya gobolka ogahay magacaabeen ahaa oo weliba la shaqeynayay dowladda xataa nin mucaarad aan ahay marka waxaan siri niyaho ama hadda siciid intu waxaan siri way keer camcamsantay waayo hadal mas-uul maaha hadalkaasi hadal mas-uul maaha wuxuu kaloo sheegay dowladdu inay xasilooni darro ku hayso iyo gacan dhaaf waxyaabahaas oo dhan waxaan u arkaa siciid wax aan u habboonayn runtii waan u khajiray waayo warkiisa waan dhegeystay b b c da wareysanaysay war dowladda
wixii dowladnimo ah baa lagu hadlaa dowladnimada waxaa kuu qurux badan saciid cabdullahi daniyow dowladda haddaad wax ka sheeganaysid waa wax dhici kara inaad wax ka tirsatid laakiin nidaam iyo system umar laakiin wixii yoyotan ha ka dhiginaya waxaan moodayaa iyo bahalkii bal iminka jariimada intaa la eg ilaahay baan kugu dhaariyay wax nin weyn usoo fadhiisto media cid walbaa daawalsa fagaaro waa saymo yiraahdo qaraxii u iilo dowladda qaraxii yariisow iyo qaraxyadii guddoomiyaasha gobolada iyo oo ah shaqadiisii guddoomiyaasha gobol waa shaqadiisii u dayacay waa amnigii loo doorto laga rabay u dayacay waxa weeye waa danxumada iyo shaqo xumada uu meesha la joogo isaga waa mas-uuliyaddii xilkii saaraa buu dowladdii soomaaliya ku eegadanaya anu waxaan leeyahay wax aada loola yaabo caqligayga way ka weynaatay mar baa waxaan sioniyo haadhama caadinimadii baa laga baxay amniga puntland siciidow adaa u xilsaaran amniga guddoomiyaashaada gobolada aduu ku saaran yahay xilka koowaada ku saaran wey waa nimanka gobolada kugu matelo madaxweynaha si toosoo matela mafahamti ma aha marka inaad tiraadi dowlad arrintaasna waxaan anigu kula talin lahaa dee weli wixii doonaa ina dhex mareene waa kuu damqanayaa wax aada leedahay waan ka damqaday waxaan maba keligay waxaan waa laga filayay ninkii fegel miyaa waashay war ma dowladda federaalka baa qaraxyadii iyo guddoomiyaasha gobolada lagu eedeynaya anigu waxaan qabaa hadalkaas ciido hadal kusoo bana ma ahayn dowladdana xaal baanu ka siinay hadalka wax nin weyn oo mas-uuli ku hadlana maaha af puntland wax ku hadli karana ma aha ay puntland ku hadli karto somaadkan dowladda nimeeda dalka ee lasu jimidka ahayd inay iyadoo dadka qarxinayso oo mas-uuliyiinteeda iyadoo laynayso wallahi af wax mas-uula ku wanaagsan maaha aada wax looga xishooda weye dowladdana xaal baanu ka siinay waxa weeye waxaanu leenahay waa siciidow iyo kuwa la taliyo waar odaygu markuu soo fadhiisanayo miilayaasha iyo meelaha laga hadlo fagaara waa saymee ama wax usoo qora ama wax usoo lasoo yar taagtaagoo isagana waxaan say war nin u isilaali markaad media ka hadlaysid aniga waa taladayda tanaad tiri dowladdu faqdana nagu wadaaba dowladdu dalkeeda iyo dadkeeda iyadaa mas-uulka ah dhan mar waad cabatay oo mar waxaad tiri waa taag daran tahay oo mar amni baad ka cabatay waxyaabaha marka la yaabkaa wax ka mid a waa taag daran tahay baad tiri iyadaadna ka cabanaysa hadday taag daran tahay maxaad uga cabanaysaa maad cagta marisi waa dowladdii dalka ma taag dar mar waad u cabanaysaa oo waxaad leedahay waxba nama soo gaadhaan oo see wax kuu soo gaadhaan qorshihii qaranka dalka dowlad buu yeeshay wixii horena waa laga baxay dowladdii federaalka waa laga baxay kumeel gaarhkahay waa dowlad hadda rasmi ah wax walbaa qorshaha qarankay gelaya haddaad qorshihii qaranka diidaanaad wax ku darsatid oo in yow meel la fadhidid see wax kuusoo aad u caban karta somaad garani tan amniga sawtaad ciidankii diiday 3 kun oo ciidan la yidhaha lagu qoro oo halaydin qoro puntland waxaan ku nihi war noo qor waa meesheena waynu u baahana adaa diiday maanta inaad ku codtiyo tada amni baa lagaga shaqayn waayo ama international community ku yeedaysid ama dowladda federaalka ku yeedaysid anigu waxaan ku arkaa niyo waanan ismaqlaynin mar waa isku filannahay puntland waa isku tashanaysaa mar waa cabanaysaa mar waa caytamaysaa niyo anigu waxaan ku oran lahaa bal taladaydaan kugu gabagabeynaya markaad media soo fariisanaysid bal aada wax isaga soo fiiriy waana mahadsantahay mudana guddoomiye su-aasheeda u dambaysa golihii baarlamaanka eed intaa u ahayd hogaamiyaha ee maanta aad xilkiisi ka maqanta maxaad kula talinaysaa oo taladaada maxaad se jeceshaa in lagu kala baxo dastuurka iyo nidaamka sidee fikirkaagu yahay bal arrintaana la wadaag mustafa waad mahadsan tahay su-aashaa dambe runtii waa su-aal meesha ku jirta waxaan ka horeynayaa anigu horta marka hore waxaan ka horeynayaa waxa lagu kala baxayo maadaama maxkamad dastuuriya jirinin horta waa iska dhib badanaysaa oo fasilka dastuurka nima meel buu la aadaya laakiin waxaan qabaa cidda maanta halkii ku geli kartaa maxkamad sare maahe waa baarlamaanka marka taa hore marka waxaan kaga baxayaa dastuurka lagu kala baxaya laakiin cidda wax ku kala saaraysaa waa ciddee ana waxaan qabaa inay baarlamaanka noqoto maadaama aan maxkamad dastuuri jirin waayo xataa haddii maxkamad dastuuriya jirto iyadu way soo sici lahayd waxa qodobka dastuuriga marka la isku khilaafo qodobka dhinac u jiidato ayuun bay caddayn jirtay ama caddayn lahayd sida uu qodobku yahay kadib laakiin fulinta iyo waxqabashada baarlamaanka mar walba yeelanaya marka anu taa waxaan qabaa dastuurka baarlamaankana waxaan kula talinaya waa su-aal aada wanaagsan baarlamaano
inagu dee waynu isgaranaynaa oo anigu odagiini baan ahaa hadda dee aqoon yukin dhimina ma jirto waxa weeye rag baa tiino dee ma khayr liidin laakiin waxaan idinkula talinayaa war dastuurka mas-uuliyaddiisu idinkayda saaranta dalka mas-uuliyaddiisuna idinkayda saaranta hay-addii dalka ugu sarreysana waa idinka hay-addii dalka ugu sarreysay dastuur ahaan hay-adda dalka ugu sarreysa waa baarlamaanka waxaan o dhan iyadaa dhashay madaxweyne iyadaa dhashay ku-xigeen iyadaa dhashay wasiirra iyagaa sii dhalay mas-uuliyaddiina keliya garta inaad dalka idinku mas-uulka tihiin shacabkiina awooddiisii iyo codkiisii idinku aada wataan intaa garta oo waxa weeye dad labadaa nin ee khilaafkoodu hadduu idin yimaado haddaan idin imano dee laisku farxshaaba meesheedi hadduu idin yimaado dastuurka ku kala saara oo sidii raganimo ah oo dastuuriya oo mas-uuliyad ah oo akhriya adduunba aada eegeysaan ku kala saara ama hooba noqdo sidiini dee haddeer wax gurta kaasi wuxuu ahaa guddoomiyihii baarlamaanka hore ee puntland mudane cabdixakiim dhobadaareed oon ugu tagnay guriga uu ka degaya magaalada istanbul waraysigeenii intaas ayuu ku kooban yahay mahadsanideen